ها هيس بهيس كهلاس هبولنا هبول كهيس يهانس waxay haatan dul heehaabeysaa masala hargeysiyo hadwana dusheed dirta geelabkeedii waxa tahay galoolo kuma gaasiraya dunida giraano gurano irmaane boodari gadiisiyo ishqigii guyaal hore garbaduubka ku xidhay kuma geeyo iilkee nafta samir gudonsi waa hees ammaan sagootin iyo samirsiin intuba xambaarsan silsilada waxaan guule ku qorin orod laguma gaab waxa gabagabeeyo maanta soo gunaanaday gabdhaheena Soomaali goob kasto aad joogtaan guusha aydun harateen hambaliyay nuleen qaybtii 22 silsilada heestan oo la magac baxday nafta samir gudonsiin ayaa waxay gabi ahaanba soo afjaraysaa qardoofadii yareed ee silsilada u rogtay goob lagu hardam heestan oo dareen gaar ah xambaarsan ayaa toos u taabanaysa qisada dhabta ee silsilada dhaqanka soo jireenka Soomaaliyeed oo leh qaybo badan qaar kamid ah ay sababi jireen dagaallo ba'an oo keena kala fogaanshiyo ummad ayaa silsiladani taariikhda gashay ku salaysneed gabadh la kala dhacay waxa muddo badan weeraro toos ah iyo kuwa gaadmaba la isku soo qaadaba waxay maanta maraysaa gabagabadii iyo gunaanadka silsilada oo ka bedelan gabayadii hore ee guba maadaama ay silsiladani loo kala safnaa rag iyo dumar tusaale ahaan abwaanada xagga ragga isgarabsanay waxay ka soo kala jeedeen Hargeysa Ceergaabo Boosaaso Laascaanood iyo Xamar abwaanada difaaciga gabdhahana waxayna isgarabsanay jigjiga Burco Gaarisa iyo Laas Qoray sida awgeed waxa silsilada soo gunaanaday gabdhaha Soomaaliyeed ee ka soo kala heesay jigjiga Xamar Hargeysa Boorama iyo Kismaayo sababtu raxma Yurugay waa boqorada codka geyga Soomaaliyeed oo wakiilka gabadha ay qisadani ka bilaabtay ayaa maanta inoo daadiinaysa mid kamid ah heesaha ugu sareeya silsilada dhanka kale gabadhii ay silsilada ku socotay oo xaqiijisay goodkii abeyskii sultaan sheegay inayna waxba ka jirin isla markaana marwad degan ku tahay galgaduud dhaxdeedii caabud waaq dusheediyo gado maalexdaas Yurubgay xidigtan reer Hargeysa gabadha ka turjumaysa ayaa waxay tahay halaqyada gurguurtiyo masas garabsan maaye geesi calaf iraacshaan galgaduud dhaxdeediyo gado kula cawiya gabadha oo toos ula hadashay wiilka uu calafku kala geeyay una rajaysay mustaqbaliyo ayatiin wanaagsan ayaa mar kale tire iyadoo qalbiga u dajinaysa gabdhaheena sharafta leh garashiyo xishood kale midda guule ku qoray geeygeena hodanka geel dhalay ku maalo guri nabadi taaliyo gaashaamo wadadaga eriyada abwaan muskar gabyaaga reer Burco oo markaa afraad silsilada ka qayb qaadanaya ayaa markani wuxuu golaha soo dhigay hees diiwaanka taariikhda toos u gali doonta silsilada oo qiimeyn lagu sameyn doona ayaa abwaan muskar wuxuu kamid noqon doona abwaanada sida gaarka ah insha Allah ugu hayn doona muskar oo aanu heesiisi hore ku xusnay inuu yahay murtiyahan aan laga dabaxdo markay timaado Israa'iilka iyo tartan suganeed ayaa markani hantiyay qulubta taageerayaasha silsilada taariikhda gashay jimcaha dambe waa suldaanka geeska iyo heesta kama dambaysta lana filaya inuu si sharaf leh u gudoomi doono maadaama ay samir gudoonsiisay gabadhii uu calafku kala fogay lacag iyo music ajini shumiyahayno ka talabajo waa soo saaraa silsilada Cabdi Askari Chief oo idin kala dhaxbaxaya idinkiyo sawt raxma Yurugay garashada waxa dheerto qof xariiraba
masas karabsan maaye gesi ala fiira